الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. marka koowaad Allah weyne waaxid taaba mahad oo dhan iska leh inteena soo muslimiin oo soo sooman isugu keenay gurigan kamida guriga Rabbi subhanahu wa ta'ala inagoo weyneynana sharfayna maamuusayna karaameynayna da'yar xifdiday wax ka mid ah siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay siduu guriga inagu jamciyey jannadiisa allah inagu jamciyo. marka koowaad naftayda nafiina waxaynu isu dardaarmanaa cabsida rabbi subxaanahu wa tacaala. marka labaad walaalayaal caruurtu diinta islaamka waxay leeyihiin ahmiyad aada u weyn. markaasaa waxaad arkaysaa rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh ahmiyaddooda wuxuu ka soo bilaabay marka hooyadooda la raadinayo maxaa lagu dooran gabadha, marka la doorto maxaa si aroosku dhici, labada qof markay isu tegayaanee hawsha gogasha guriga dhacaya maxay akhriyayaan, ilmihii markuu dhasho ha lagu addimaa la yidhi, waxaa loo gogol xaadhaya inuu soo baxo walad saalixa carruurta alla inuu hagaajiyo. walaalayaal carruurta wacnaata ama wanaagsanaata aakhiriya adduunkaba waxay leedahay dheef iyo wanaag aan kala gool ahayn. waatii rasuulku tilmaamayay sal alla alayh wasalam qofku markuu dhinto camalkiisu wuu go'aa saddex mooyaane, camallada aan go'ayn waxaa ka mid ah aw waladin saalixin yadcuu lah, ilmo saalixa oo kuu soo duceeya. saalix ilmuhu markaa iskama noqdo, waa ilmo tacab la geliyey. markasgan waa laydinka warbixin doonaaye waadna haysaan warkiisii, iyo ardayda tarbiyadda wanaagsan uu ku tarbiyeynayo. ilaah waxaan uga baryayaa dadka gacanta ku haya ilaahay inuu barakeeyo, awlaadda yaryara kuwa saalixa uu ka yeelo. markaskani wuxuu u taagan yahay inay carruurtu noqoto carruur saalixa. sidaa daraaddeed inaynu markaa dhammaanteen la shaqayno, garba u noqonno. intaasoo boqol marka fasaxa laga soo noqdo kadib aynu isugu imaan doonaa xafladdiisa weyne. intaasoo boqol oo wiilal iyo gabdhala buu hayaa. intana waa qadaf yaroo ka mida oo kooban inaynu markaa dhammaanteen la shaqayno, mid caqli ku taageera, mid maal ku taageera, mid ku taageera fikir, mid walbaaba waynu u baahannahay. walaalayaal carruurta haddii waalidka iyo macallinka iyo masaajidka aynu isku wada xidhnaano oo dhammaanteen aynu innagan dilayno, jujuubayno, khasbayn inaynu carruurta si kooban oo wanaagsan oo saxiixa wax ugu sheegno, carruur wanaagsan baa inoo soo baxaysa. sidaa daraaddeed aynu carruurta u dadaallo. amin gaaban baynu joognaaye carruurta aynu ka warhayno. soomaalidu waxay tidhahdaa geed yaraanta ku toosay weynaanta kuma qalloocsamo. hadday maanta tubta toosan qaadaan oo siiradii nebiga lagu ababiyo tafsiirka qur-aanka iyo xadiiska rasuulka sal alla alayh wasalam iyagoo waaweyn uma badna. ilaah baa hidaayada haye inay lumaan. ilahay carruurta inoo hagaajiyo, ilahay carruurta inoo hagaajiyo, ilahay carruurta inoo hagaajiyo. sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed.